وزارة ku-xigeen sharaf bay noo tahay inaan maanta halkan u joogno saxiixa mashruucan muhiimadda weyn u leh dalkeena oo ka tarjumaya ka hortagga fatahaadaha webiga Shabeelle oo aan ognahay inuu dhibaatada ugu weyn u geysto magaalada Beledweyne iyo guud ahaan dhulka uu maro webiga Shabeelle. mashruucan waxaa sida hadda safiirku sheegay maalgeliyay dowladda Talyaaniga sanadkii hore ayay ahayd in la shaqo bilaabo laakiin dib u dhac yimid awgeed oo ka yimid xagga waddankaas ayaa dib loogu dhigay ayuu dib ugu dhacay. waxaa maanta halkan ku saxiixi doonaa mashruucaas oo ka kooban 6 milyan oo euro oo xooggeeda la gelin doono fatahaadda Beledweyne qayb ka mid ah la gelin doono beeraleyda Shabeellada Dhexe iyo Hirshabeelle sida ay ugu adkeysan lahaayeen dhibaatada uu keeno fatahaaddu keento ugu adkeysi loogu sameyn lahaa ayuu ka shaqeyn doonaa mashruucaani. wuxuu dayactiri doonaa kanaalo gaaraya 36 kilomitir ayaa ku jirta in la dayactiro. waxaa ku jirta in la dayactiro webiga meelaha uu ka dilaacsan yahay oo fatahaaddu ka keeno oo dhan la dayactiro. waxaa ku jirta in dadka beeraleyda ah oo dhulkaas uu ku fatahay ku nool dhibaatada ka soo gaadhay in laga kaalmeeyo. aad iyo aad baan ugu mahadcelinaa dowladda Talyaaniga oo runtii wasaaradda beeraha wax badan la qabatay ugu dambeysay shalay daraad dhismihii wasaaradda la furay biilka cusub oo wasaaradda headquarterkeeda in dowladda Talyaanigu ay maalgelisay ay iyada iyo European Unionka ay deeqda bixiyeen iyo mashaariic kale oo fara badan waxaa ka mid ah dayactirka Primo Secondario Channel oo ku yaala gobolka Shabeellada Hoose oo iyadana ay Talyaanigu maalgeliyeen. waxaa ka mid ah dhaaman badan oo dalka meelo kala duwan oo laga sameeyay oo ay Talyaanigu ay maalgeliyeen. runtii Talyaanigu aad iyo aad bay waxyaabaha infrastructure-ka ah oo dalka oo kala duwan ay noogala shaqeeyeen gaar ahaan kuwa beeraha khuseeya si fiican bay noogala shaqeeyeen. waxaan rajaynayaa in mashruucaani wax weyn ka tari doono ka hortagga fatahaadaha webiga Shabeelle haddii meesha uu ka soo bilowdo la hagaajiyo. waxaa kaloo ku jira carra saar baa ku jira webiga la carra saaro oo ciidda oo buuxsantay laga saaro. waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dowladda maamul goboleedka Hirshabeelle si gaara madaxweynaha Maxamed Cabdi Waare oo mashruucan ilaa bilowgiisii runtii door fiican ku lahaa nagala shaqeeyay iyo wasaaradda beeraha Hirshabeelle. fulintana waxay noqon doontaa inay maamulka dowladda goboleedka Hirshabeelle qayb buuxda ka qaadan doonaan haddii la haydmo. arrintaani waxay wax weyn ka tari doontaa ra'iisul wasaare oo adkeysiga abaaraha waddankeena iyo dib u soo nooleynta kanaaladii iyo infrastructure-kii beeraha. webiga haddii la hayana waxaa yaraan doona biyo la'aanta beeraleyda soo wajahda sanad walba. marka munaasabadaas ayaan u joognaa maanta inaan saxiixino. wasaaraddu waxay ku leedahay kormeerka iyo duljoogteynta laakiin fulinta waxaa yeelan doona dowlad goboleedka. aad iyo aad baan mar labaad ugu mahadcelinaya dowladda Talyaaniga doorka fiican oo ay ka qaadatay taageeridda mashaariicdaas kala duwan oo dib loogu soo nooleynayo horumarkii wax soo saarka beeraha dalkeena. aad iyo aad baa mahadsantihiin. waxaan rajaynayaa inuu si guula u fuli doono insha Allah. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.